haddii aan nahay beesha baadacadde haddii tahay stateka iyo haddii tahay federaalka waxaad moodaa inaan ku dulmannahay. horta waa nasiib darro ninkii aad u dirsatay inuu kuu adeego inuu adiga kaa adeegto. 8 sano Hirshabeelle ee dhisneed ma jiro dhalinyaro gaarayso ku dhawaad 20 qofood ama 15 qofood Hirshabeelle ka shaqeyso oo mishaari ah ma jiraan. warnimo yahow waxaa la yidhi ceelley markay heshiisay xoolo biyo cabaane. waxaan rabaa maanta fariintayda inaan u diro dhaqanka odayaasha waxgaradka duubko inay arrinkan maalin walba soo noqnoqday ee dhibaatada ah dhalinyarada lagu haayo waxa sameynaayo waa raggii adika aad matasheen raggii aad adika xusheen ee aad meeshaas geyseen ee la rabay in raggaas dhalinyarada ee wax bartay. doctorka waxaan leeyahay sorry doctor uma qalantid insha Allah taala waana ku garab taaganahay meeshaas email ka sareysa inaad tagtid waa rajaynaynaa. intaano adooman ilaahay faataxada ku mareey meel ka fiican ayaan kugula dadaalaynaa kugula dardaarmaynaa intay nimankaas meeshaas joogaan inaadan waxba u doonanin waa rajaynaynaa. dhalinyaradii hore dabkan ugu gubatay kuwii ilaahay ka bixi iyo kuwii ku dhacay sidaadoo kaleentana waxaan leenahay adikane allah idin dhib yeelayo boogtiina boogow ay leefay dhahaan dadkayne allah idinkaga dhigo. markaan xigto waxaan rabaa dhalinyarada guud ahaan gaar ahaan beesha baadacadde magac la qarima haddii aan nahay beesha baadacadde haddii tahay stateka iyo haddii tahay federaalka waxaad moodaa inaan ku dulmannahay. sababta aan ugu dulmannahayne waa un dadkeenna na matalo kii dadaalayne waa ku mahadsan yahay kaan dadaalinna waxaan rajaynaynaa faraskaba waxa usha loogu dhufto inuu wax ku daro waahe in sidaanoo kale kulamanka la isugu yimaado lagu canaanto si looga dhigo inuu wax raadiyo intay xaafadaha joogi lahaayeen waxa ka doonaan. doctorku wuxuu u mahadceliyay hadda waxaa leeyahay ninkii bini'aadankii wax siiyay ama wax u qabtay aan u mahadcelinin ilaahayna uma mahadceliyo. xildhibaan wasiir maxamuud cabdiraxmaan beene inuu la dadaalo sheegay. xildhibaan wasiir shukran waan kaaga mahadcelinaynaa. xildhibaan maxamed ibraahim macalimu ayuu sheegay asigana inuu la dadaalay annaga afkiisaan ku hadlaynaa asigaa naga og asigana waxaan leenahay shukran waa lagaaga mahadcelinaa arrinta doctorka. xildhibaan ekis wasiir khaliif asigana inuu dadaalo sheegay asigana shukran waan kaaga mahadcelinaynaa. waxaan rabnaa marka inaan sheegno maalintii wax la qabtane inaan walaalaheen aan u mahadcelinno maalintaan wax la qabaninne waa sheegaynaa sidaanoo kalean leenahay waxba maadan qaban waad dulmantihiin ummaddana waa hortaagantihiin aan leenahay. runtii walaalkeen Dr. Barrow wixii ku dhacay ma ahayn wax uu qalmay mana ahayn waxaan qaadan karno. marka waxaan leeyahay walaalkii Dr. Barrow yaani ku saameyn wixii kugu dhacay annaga ku garab taagan. inta haddii aan ku sii daro waxa kugu dhacay adiga ka hor rag badan ay ku dhaceen. raggii waxa ilaahay mahadiisa inay rag badan halkan ka fadhiyaan wixii kugu dhacay wax la mid ah dadkii ay ku dhaceen. horta waa nasiib darro ninkii aad u dirsatay inuu kuu adeego inuu adiga kaa adeegto wax fiican maaha. waxaan ka filaynana ma aha. horta xildhibaanada ma isdhehaynin sanadkoodii ugu dambeeyo oo aakhirka ayagoo ku jiro ayay weli ficiladii sii wadi doonaan. hase yeeshee waa dhacday. waxaanse ku hanweynahay aan rajaynaynaa inuu isbedel buuxa dhici doono oon kala har lahayn. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان وعلين سلام يا دلنيرada aqoonyahanada meeshaas ku imaaday
horta waa arrin muhiim ah inay dhalinyarada horta isku imaadaan ay ka hadlaan dhibka wax haysato marka waa aadan ugu faraxsanahay walaalkay Dr. Barrow aadan ugu dhaqmada ninkii aad u dayaalna waanahay oo xogaal fiican waa ka ahay howshiisana waa la socday marka intaas oo qadartu ee dhacday laakiin haddana qadartu ay noqotay inay ku leeyihiin rag xildhibaan ah oo matalo oo maanta fiirsanayna leenahay kuraas ay kaan ugu fadhiya wax walba ay kaan soo dhicinay inay maanta arrinkaas asaas noo noqoto waa wax laga yaabaa marka aadan u maasantii dhamaantiin waan salaam insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan waa maasantiin inta kulankan soo qabanqaabisay inta ka soo qayb gashay. Waxaan la qabaa intii hadashay in arrintii ku dhacday walaalkan Dr. Barrow iyo dhalinyaro kale oo badanba inaan aad ugu xumahay. Waxaan rabaa inaan ka hadlo laba qodob arrintan waxyaabaha keenay. Qodob waa dadka meesha ugu matala sida hore loo sheegay waa dad beesha matalo oo la dirsaday ahayd in si maxalla shuruud la'aan ah ugu shaqeeyaan beesha haddii noqon lahayd dhalinyaro la shaqaaleysiinayo deegaanadii la horumarinayo wax walba taa ma dhicin intii laga taa bedelkeedii waxay sameeyeen qof kasta oo dhalinyaro oo mustaqbal leh oo wax doonta in ay isbaaro u dhigtaan shuruudda koowaad uu yahay inuu lacag bixiyo qofkii dhalinyaro badan lacag bixisay lacagtoodii wax ku waayay xali waxa ugu maqlay rag meesha aqoontooda ku tagay oo mashaariic u tartamay ku guuleystay coordinator ka ah in xildhibaanada qaar ay dhahayeen hebel iyo hebel nama salaamo dadka mashaariicda noocaas coordinatorada ka ah lacaga laga qaataa hebel lacag kama qaadano waa inaan kursiga dhaafina maadaama uu lacagna sii waay waa ninkii aqoontiisa ku helay oo mashruuc u tartamay ku guuleystay sidaas loola dhaqmaa ninkii cusubaan lacag laga qaataa positionkii la keenin taa waxa dheer hadee laba ama saddex ama hal kamid oo ku wado madaxweynaha ku geeyay ama positionkii loo soo ogolaado in telefoon laga daba diraayo oo team kale inay wacaan dhahaan looma dhama ninkaas ma siin kartid sidaasna ay ku dhacda in qofkii wax waayo sidaas ku dhacday walaalkan Barrow isla isbuuc ka hor ama isbuucan bilowgiisii waxa ugu dhacday position aan u tartamay oo la interview soo gaaray waan huba in maxaa lahaa dadkii la tartamay aan aqoon iga guuleysan in go'aankeedii ninkiis kala uu yahay in baadacada meesha ku matalo marka weydiin aan dahay positionkaas meesha gabagaba ugu dambeysay interviewgan jooga go'aankan adiga aska leh qof kale oo cid oo positionkaas tartanka igu jiro ma jiro sidaa darteed positionkaas garab igu sii inuu si hadal aan ka filayn igu la hadlay oo aan rabo in hadda halkaan aan ka sheegno aad ugu xumahay positionkiina qof kale oo sii oo aan reer ka ahayn reer tolkayga aad u mahadsantihiin waa ku faraxsanahay inaan igala soo qayb galo mideeda labaad waa arrintan anfiriirka oo Dr. Barrow ku dhacday markii la ii sheegay aad ugu xumaaday marka waxaan raali ka ahay shakhsiyan ma ahan waxaad qof walba oo damiir leh oo dhibaatadaas ku dhacday oo raali ka yahay ma ahan wax oo bini aadanimada la qof waxa nafsiga la rabin qof uu qaadi kara ma ahan aad ugu xumahay mideeda labaadna qofkii adiga ku matalay oo aaminsan aniga matalaada sideeda waxaan ka aaminsanahay qofka adiga ku matalo inuu adiga ku shaqeeyo ba aaminsanahay inuu tolkaas u shaqeeyo qofka uu shaqeeyo qofka asi ku shaqeynaa haduu ka shaqeysto ayadan dhibaatadeeda leedahay laakiin wixii dhacay aad ugu xumahay laakiin Soomaaliya waxay dhahdaa caanada dabadooda la qabtaa hadda alxamdulillah wadanka uu ma voido noqday oo aad sida la rajaynayo nin walbo codka gacantiisa soo galaa aniga waxa aaminsanahay sida nin baahan gob ma ahan ma fahanti haddii aan u galo arrinka meesha maanta loo isku yimaaday inkastoo hadalkaan ku fiicneen caqabadaha ugu badan ee dhalinyarada state-ka markay wax ka raadinayaan caqabado badan waan la soo koobi karin oo aniga maanta aan tusaale u ahay waxay ugu dhacay ma filaynin haddii aan si brief leh aan ugu soo hadlo wadanka waxaa dib ugu soo laabtay June 2024 waxaa doontay position wasaaradda caafimaadka Hirshabelle oo bannaan oo agaasimaha waaxda emergency-ga June up to September
waxaa lagu haystay meel bannaan ah arrinteeda meel kastee la dhah iyo hotel markay dhaafi weyse ugu dambeyntii waxaa nasiib u yeeshtay maalin maalmaha ka mid ah wasiirkii federaalka wasiir Beene oo Jowhar u socdo inaan raaco sidii aan ku tago Jowhar madaxweynihii liigeeyo positionkana madaxweynihii oo siiyo kadib follow upki in la daba galo marka kaalintiis waxaa iska lahaayeen tiimkii stateka joogay way dhici waysay in follow up lagu sameeyo haddana nasiib waxaa u yeeshtay maalinkii xafladdii Hirshabeelle ka dhacaysay inaan arko xildhibaan wasiir Khaliif haddana waxaa ku laabanay sidoo kale habeenkaas madaxweynihii wuxuu noo ballan qaaday positionkii noona siiyo asagoo madaxtooyada dhex jooga madaxweynaha anagana aan hortaaganahay oo wasiirka caafimaadka wacay wasiirka waa la waayay nasiib wanaag waxaa jira marka xildhibaan ka mid ah ayuu habeenkaas safarkaas meesha u aadnay naga haray dhaawaca koowaad meesha ayuu naga soo gaaray xildhibaankii madaxtooyada joogo anigii madaxweynaha la fadhino oo arrinkan aan kala hadlayno ma filinaynin taas inay igu dhacdo markii hawsheeda ee soo dhammaatay oo aan sugayay inaan helo warqaddii aan ku shaqaysan lahay haddana caqabad kaleeto ay hor imaaday caqabadaas marka waa badan yihiin midda ugu muhiimsanaa waxay tahay marka waxaan waayay in mar labaad madaxweyne maxamed joogo xildhibaanadii stateka oo lagu daray wasiirka stateka in madaxweynaha dib ugu laago weyno ugu dambeyntii dhibaatadaas ayaa deegaanka ka taagan taasna waxay ku imaaday matalaad xumada ka jirto meeshay gaarsiisan tahay intaynu ognahay anagana markhaati ka nahay taas waxay marka cadeen u tahay 8 sano Hirshabeelle dhisneed Hirshabeelle dad badan nala degan 8 sano Hirshabeelle ee dhisneed ma jiro dhalinyaro gaarayso ku dhawaad 20 qofood ama 15 qofood Hirshabeelle ka shaqeyso oo mishaari ah ma jiraan taas marka waxay tilmaam u tahay 8 sano inaan nahnay dadka meesha noo joogay aan dirsanay inay ahaayeen dadkii ugu failures galaan macnaha minis waxaan ka wadaa 8 sano 20 qofood waxaa dhiman in Hirshabeelle ka shaqeyso ku dhawaad 5-6-7 qofood kama badno meesha marka waa meesha aan matalaadii saxda aan ku weynay al-umuum dadkii arrintan igala qayb qaatay waa sheegay oo ugu horeeyo wasiirka xildhibaan Macalimo iyo Khaliif Cabdi Cumar iyo tiimkii stateka oo asina ugu horeeyo wasiir Daqare xildhibaan Cabdiladiif iyo gabar walaashay Amran la dhaho ayaa tiimkaas ayaa si fiican igala shaqeeyay booski ugu dambeyntiina sidaan wax u rabay meesan u dhicin qadartii aan ku waayay laakiin waxaan niyad ahaan u jabay markii aan waayay xildhibaankii anigoo madaxtooyada galaayo inuu bannaanka fadhiistay anigana aan galay meeshii iyo tiimkii ila socday inuu habeenkaas naga haro taas aad ii dhaawacday shakiga ugu badanna wuxuu ka imaaday markii wasiirkii caafimaadka madaxweynihii oo wacay oo lambarkiisa wasiirkii uu dansan yahay warkutaalada kaleeto oo jirta waxay tahay inaadan xildhibaan ka mid aan raadiyey aan dhahay saaxiibo booskan igala shaqeey haddii adi aa u baahan tahay in qof geyso laakiin booska ha noqdo boos baadacade si cad oo bareer oo gambasho lehna wuxuu ii dhahay story soo dhawaaw 50% taa ku taageersanahay 50% shidaal ku shubo ma filanin idin taas